fadhi ay maanta yeesheen xildhibaanada aqalka wakiilada ee Soomaaliland oo ka soo xaadireen 55 mudane oo kamid ah 82 xildhibaan ee ka kooban yahay golahaasi ayaa waxa shir gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax waxaana mudanayaashii fadhigaasi ku sugnaa uu xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid ayaa la koor akhriyay go'aan ay soo saareen golaha wakiilada ee Soomaaliland kaasoo ay ku taageerayaan heshiiska saddex geesoodka ee ku saabsan maalgashiga dekada magaalada Berbera iyagoo ka soo horjeestayna go'aankii ay shalay ka soo saareen heshiiskaasi xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 13 Maarch 2008 soo saaray go'aankan madax banaanida midnimada iyo xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa lama taabtaan wuxuu golaha wakiiladu si buuxda u cambaareynaya go'aankii gadarrada iyo sharci darrada ahaa ee golaha shacabka ee dawladda Soomaaliya ka soo saartay dekada Berbera sidoo kale wuxuu goluhu si xoogan u cambaareynaya fargelinta qaawan ee dawladda Soomaaliya taag daran ku hayso madax banaanida iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan kullu wuxuu marnaba taageeraya isagoo gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii 9 bishii August 2016 cod aqlabiyadna ku ansixiyo 69 cod kuna meel mariyay heshiiska maalgelinta dekada Berbera Port kullu wuxuu go'aamiyay in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si uun ugu gacan siisa xukuumadda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidka ku ajiritaanka iyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland in loo aqoonsaday cadow qaran waa cid kasta cadow qaran kullu wuxuu ururada qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka jaamacatul Arab ururka IGAD dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u cadeynaya in dhaqdhaqaaqyada dawladda Soomaaliya ka wado mandaqadan geeska Afrika yihiin kuwa keeni kara xasilooni darro cusub balse jamhuuriyadda Soomaaliland mar kale dunida waxay u cadeynaysaa inay mabdahan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo nabad ku wada noolaanshaha istixgaarinta iyo xuquuqda ay ka tashiga kullu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinta madax banaanida sharafta iyo midnimada dadahaaneed iyo dhulhaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland kadib waxa la gudagalay in cod loo qaado go'aankaasi golahu gaaray waxaana ku dhawaaqay codaynta gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax 54 waxay taageereen go'aanka golaha wakiilada gudoomiyuhu ciidamada diideen cid kama aamusin gudoomiyuhu muu codayn go'aanka sidaas oo asax ku yahay tan iyo intii uu dhacay heshiiska saddex geesoodka ee u dhaxeeya Soomaaliland Itoobiya iyo shirkadda DP World ayaa waxaa khilaaf siyaasadeed oo cirka isku sii shareeraya uu ka dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya Mukhtar Ismaaciil Ali TV-ga Universal Hargeysa